به ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في العقيدة، قبلها غالقة آن نجعلها أمهات الخير. إله وحان ويديسنا يا إنو إذن كردغو اسم على مسمى مقعين إيو تلمامهينو إني إسياشان أيان الله ويديسنا يا سبحانه عاوة كلمة ديدو وحيكو سابسنتهاي عنوانك آدورتين لما عبحي تكو انت آن لغوغو تكنين. نعم، تكو انت آن لغوغو تكن وكلمة آد أوين وإري بحن آذي آد أبلارا والركن اللباد أركانت إسلامك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحا أيان درأة ضد مسلمين أو لا إله إلا الله سويري أو لبدو دي والد أي مسلمين يهين أو هدنا الصلاة دي لغو وانين أيو أو صلاة دي لغو كري لأي هيبا إلي تكدان رنهانتي وأيان درأة دوين. ولذلك جبد كلمة وحان كجها اللي دونا هدي الليلة دو عقوبة وإلهي كرتبي سبحانه قفك أن صلاة تكن أما قفك صلاة فضوضيستا عقوبة أوليهي أيان قيب كجت المامي دونا بإذن الله كلمة دينان. أولا وحان أغانينا صلاة قيمها إيا مكانة أي كل دهي دينتنا إسلامك وحان له كرا قضبضا صوصعدا. وبالله التوفيق. أحبكم في الله. إلهي درادي بان إذين شعلهي. أولا كلمة والنصيحة لله سبحانه وتعالى أن اسكو حسوسينينو اسكونا حسوسينينو رقنق اللباد أركانت إسلامك كمذا. أولا سيدا المقليسين والركن الثاني من أركان الإسلام قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ساس أيو نبي إنه عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح أكيري آيات كقرآن صلاة كورميا وأقيموا الصلاة والصلاة توسية أيقنا آد بأبديهن قيمها إيا مكانة أيلاد صلاة وحاتكو قرنيسان وركنك كوباد هذا لبا ماها ركنك كوباد. نبي محمد صلى الله عليه وسلم سفر لوغليه الإسراء والمعراج قوريها بينمو النبي مكة كسو قور قليي إلى بيت المقدس كيمت ثم أي هلك اسكراعين ملك الجبريل أي اسكراعين سمو البنا أي قراعيين هدفك أوغوين النبي سفر كإنتا لوغليي intaasoo ambiyaa uu soo arkay ilaa uu nabigu ka gaadhay cinda sidrati almuntaha cindaha jannatu alma'wa oo xataa uu jibriil gaari kari waayey allah uu la kulmay subxaanahu wa tacaala. ilaahay uu ku soo waajibiyey 50 salaadood laga khafiifiyey 5 salaadood lagu soo reebay ajir ahaana 50 salaadood ajirkoodiina loo qoray. taasi waxay ku tusinaysaa qiimaha ay leedahay salaadu, mansilada ay leedahay salaadu, darajada ay leedahay salaadu. mid kale ma ogtihiin ayuha alikhwatu wa ayuha alakhawaat, walaalaha qiimaha badan ay dhegaysanaya iyo kuwa i dhegaysan doona intaba weli ma aragteen arkaanta islaamka iyo cibaadaadka oo dhan marka la isku daro salaada wax la mid ah. haddii aan ka tusaaleeyo soonka, haddaan ka tusaaleeyo soonka meeqa qof ayaan tukan
ayaan soomin oo qaangaadha oo muslimiina waa badan yihiin yaa ka mid a haweenayda caadada ku dhacdaay soonkii waa laga qaaday haba soo qadaysee waa iyadoo qofkii qaangaadha baa soonkii laga cafinayaa qofka musaafirka ah ee socotada ah waxaa laga kor qaadoo laga cafiye hadduu doono dibba ha ka soo qadeeyee soonkii ka jihaadka ku jira dibba ha ka soo qadeeye asagana waa laga kor qaaday midka xanuunsan ee jiran asagana waa laga kor qaaday gadaalba ha ka soo qadeeye bal hadda adigu wad meeqa nooc baan tukanaynin cafan meeqa nooc ayaa soonkii laga qaaday meeqa nooc baa soonkii laga dulqaaday haddaad u timaada zakada waxaad arki doontaan ayuha alaxibatu fillaah inteennan hadda qolka ku jirta iyo intana maqli doontaba meeqa ayaa xoolahoodu zako gaadheen oo ka zakeeyey waxaa laga yaabaa in ay tiro yar noqdaan macnaheedu waa maxay muslim dhan oo adduunyada 60 sano ku noolaa ayaa laga yaabaa inuusan weligii zaka bixinin leesh lianna xoolihiisuba zaka ma gaadhin hadda waa rugni dhan oo arkaanta islaamka ka mid ah mid kale aan idin xusuusiyo oo xajka ah xajku cumrigaaga hal mar buu qofka muslimkaa ku waajibaa axibaa'i fillaah meeqa qof ayaan xajiyin oo xajkuba ku waajibin oo xoolihii ay ku xajin lahaayeenba aan helin xataa dumarka ayagoo xoolahay ku xajin lahaayeen haysta ayaa la yidhi gabadhii maxram baad u baahan tahay hadda xoolihii bay haysataaye ogow qofkii asagoo xoolihii haysta yaa laga yaabaa in la yidhaahdo jidka waxaa fadhiya tuugo aan loo mari karin markaasuu bartaa ka soo noqonayaa ogow nabigeenna sala allahu alay wasalam hal mar buu fii xayaatii xajiyey dad aan weligood xajiyin baa malaayiin ah hadda waa rukni ka mida arkaanta islaamka ee miyaad garatay bal hadda u soo noqo salaada ayuha alikhwa wa ayuha alakhawaat wa ayatuha alfudlayaat bal salaada aan u soo noqonno ii sheega walaalayaal qofka muslimka ah ee la yidhi salaad wuu ka tegi karaa bal ha la ii sheego inaan xanuunsanahay baan ka soo qaaday oo aanan istaag ku tukan karin waxaa la igu yidhi waa inaad fadhi ku tukataa ka tag la ima dhihin sidii kuwii horeen soo marnay ama arkaantii horeen hadda aan soo sheegnay waxaa la yidhi istaag fadhi kuma tukan kartid waxaan idhi waxaan ku tukanayaa jiif mid kala qabsabal biyo ayaa la waayey lama dhahayo salaadii waa in laga tagaa ee maxaa la yidhi waa in la boodhaysto ama la gebagabaysto carro iyo ciid haddaad weydo derbi iyo ilaa ay bawdyadaada gaadho ilaa ay bawdyadaada iyo miiska ku hor yaalla aad gaadho ayaa lagu yidhi gebagabayso ama boodhayso oo marna salaad ha ka tegin qiblada in loo tukadaa la isku ogaaye haddii qibladii la garan waayo meeshaad rabta u tukaan lagu yidhi xataa qofku caawiya oo qiblada kuu jeediya haddaad weydo waxaa lagu yidhi fattaqu llaha ma statactum sidii idiin fudud salaada u tukada ayuu alle idin yidhi subxaanahu wa tacaala mid kaloo ka cajaa'ibsan u fiirsada oo salaada ah xataa xaaladda jihaad iyo dagaal lagu jiro haddii mindiyaha iyo baynaadda la ysula tago salaadii tasbiix iyo taxmiid ayuu alla ku fasiray subxaanahu wa tacaala ayaa salaad ahe marnaha ka tegina oo maxaa la yidhi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum taa'ifatu minhum macaka walya'khuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaati taa'ifatu ukhraa lam yusalluu falyusalluu macak xataa ayada oo cadowgii hortaada jiro ama gadaashaada ayaa la yidhi tartiibka ha loo tukado ii sheegay qofkee weeye qofka la yidhi salaada ha ka tago waa kuma qofka la yidhi
qofkee la yidhi salaada ha ka tago salaada horta qiimahaas bay leedahay waa inaanu ogaano qiimo kalaan idiin sheegi ayo alikhwa gadaalna waan ka xusi doonaaye aslan ba calaamadda lagu kala saaro muslim iyo gaal waaba salaad ya imaa gaalnimo wa imaa salaad warku waa inta markaan taariku salaadka ka hadlayaan soo sheegi doonaa taa dib igu dhig marka qiimaha ay salaadu leedahay waxaad ku garan aakhara marka la tago camalka qofka iyo alla ka dhaxeeya waxa ugu horeeyo la weydiiyaa qofka waa salaada imtixaanka noocaas iyo haddaad ku baasto wixii ka dambeeya way fududaan sidaa anugu ma dhihina nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaah waxa ugu horreeyo addoonka la weydiiyo xuquuqda addoonka iyo alla ka dhaxaysa waa salaada calayhi asalaatu wassalaam wuxuu raaciyey haddaad imtixaanka ku baasto wixii ka dambeeya way fududaan haddaad imtixaanka salaada ku dhacdana wixii ka dambeeya way sii cuslaan salaadu qiimaha ay leedahay xataa dad salaad tukada oo dembiyo waaweyn gala haddayna ka toobad keenin ayaa aakhare cadaabka la soo marinayaa hadduuse alla u dhaafin maxaan oga jeedaa xarama allahu cala annaar ilaahay naarta waa ka xarimay inay an ta'kula athara asujuud xubnaha laga weysaysto inay naari taabato alla waa xarimay bal u fiirsada waa salaada qiimaha ay leedahay dadka tukada iyo dadkan tukan dadka tukada adduunka aakhare markay tagaan xubnahoodii oo dhan baa iftiimaya kuwa aan tukan jirin markay xubnahoodii ay mugdi noqdaan ayay kuwii tukanhayay la hadlayaan unduruuna naqtabis min nuurikum nasuga aan wax yar iftiinka idinka qaadanna kuwii tukanaya waxay dhihi doonaan qiila irjicuu waraa'akum adduunyadaa nuurka laga soo qaataaye adduunyada ku noqda miyay ku noqon karaan maya faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi alraxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab derbi weyn baa dhexdooda laga dhisi doonaa dhinaca ay kuwaa jiraan waa mugdi dhinaca musalliyiintu ay jiraanna waa iftiin markaasuu alle wuxuu yidhi markaasay waxay dhawaaqayaan markay naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi alraxma wa daahiruhu min qibalihi alcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum way dhawaaqayaan war sow maydaan soo hebel iyo hebel ma tihiin soo isku magaalo maynaan joogin soo isku magaalo maynaan deganayn war soo nama garanaysaan maxaad iftiinka iyo nuurka nooga dansateen maxaa derbiga dhexdeenna loo dhigay way dhawaaqayaan yunaaduunahu alam naku macakum jawaabta mu'miniinta tukanaysa dhegayso qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله آيات كاسو كلا الله يا وحيلي نفتي إن سلادة كذا صوتي أنه إذن كل يجري صوتي السلادة اللي إذن كل كريواي جري وتوبت كيري دونا سو إذن كده جري كدبنا أي جيريدو إذن كتفمت نفتي إن إذن كافتنيي نفتي وحا إذن لا ديراتي نولشبا إذن لا ديراتي وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى أي جيري إذن تماد أو إذن كأو بابورتي نوضو أنتو كنين جاريجي إذن لقلمه
kadibna naftu idinka haado xabad lagugu dhufto adigoo taariku salaada wadnuhu ku istaago adigoo taariku salaada geeridu kugu timaado ها marka aad dhahdo أحبائي في الله salaada iyo qiimaha ay leedahay munaafiqiintii waqtigii nabi maxamed joogtay calayhi salaatu wassalaam oo uurka gaala ka ahaa oo cabdullaahi bin ubay bin saluul uu kow ka ahaa ayay u suurtageli weyday inay salaad ka tagaan abadan inay salaad ka tagaan ayagay u suurtageli weyday lianna qoorta loo dheerayn lahaa adduunyada waa laga qarin lahaa iftiinka nin taariku salaada adduunyada inuu ku noolaadaa maba ahaba xaqiiqadu waa nooca markay dawlad islaama jirto ya ima inaad tukato ya ima in riddatan aw xaddan labada in lagu dilo hadhowtaa wax ka tilmaami doonaayo dadka salaada tukada salaada iyo qiimahay leedahay idiin sheegi waa waxa lagu dhiso adduunyada walaalnimada iyo alwalaa walbaraa qaala jalla wacala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت إنما المؤمنون الذين سورة المائدة اللوح كله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تتكولالك كو الرمتأ وكو التكذة إنما النبي صلى الله عليه وسلم إن بني فلان ليسوا بأوليائي خير هبل وقالوا أبو جهل أبو لهبي أنا ولا الله معها إنما أوليائي الله وصالح المؤمنين والله يا مؤمنين تتكته مريم بحلويلي يا مريم اقنتي لربك ربك خشوع أو ربك عابد أو ربك السجود أو ربك الركوع oo kuwa rukuuca macooda noqo ayaa maryama binti cimraan lagu yiri fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah kuwa wanaagsanaa waxa gadaashooda yimid kuwa salaada dayaca ayaa gadaashooda yimid shahawaadkana raaca wattaba'u ash-shahawaat abaalkooduna waa webiga ghay la yiraahdo ee jahannama maalin walba 7 jeer ilaahay ka magan gasho salaada qiimaheeda waxaad garan ما سلككم في سقر أيا لديه دونا والسقر محائد جليي مركز لديه دونا قالوا لم نكن من المصلين ما أن تكنشرين أيا لديه دونا واستعينوا بالصبر والصلاة بمركيري الله سبحانه وركال ميس الصبر إيا الصلاة إلهي وحيري وإنها لكبيرة أي لثقيلة صلاة وامد كعرس أما وامد علص قد شديدو إلا على الخاشعين إلا كوا صلاة كو خشوع ما أهني كوا كلاوي كو أدكتهاي صحابة ساسي أفهمين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة سيدو أوينين شري أما أقيمين شري واتقرن إسان هو يدين عائشة إلي تلمانتي واتاقنان شري وصلاة الليل مد واجبك إسكده حتى تتفطرت قدماه حتى أي نبي قال لويه سد الدلاع شرين يعني انتو ليق رن هوس ادقو ايا حديدada lugaha soo berberani jiray sida qofku markuu in badan taagnaado markaasay nabiga alayhi salatu wassalaam hooyadeen Aisha waa midda ku tiri ya rasuulallah maxaa naftaada u dhibaysaa ayadoo dambigaagii hore iyo kaagi dambaba la dhaafay nabiguna uu yiri sallallahu alayhi wasallam haduu ilaahay nicmada ii galay soo inaan aniguna mahadii celiyo ma aha oo aan ka mahad celiyo salaada iyo muhiimada ay leedahay hatta adiga oo saaran diyaarad adigoo saaran baabuur adigoo tareen saaran kama tagi kartid qiblada inaad u jeesatana sharti ma aha haday qiblada dhinaca cagsigeeda marka aad u jeedo salaad meel looga tagi kara lama arko saadaradeed ayaan waxaan marka hore rabaa marka inaan ku waaniyo naftayda iyo nufuustiinaba salaadu waa ra'samaalkeena salaadu waa waxa bangiga noo yaala salaadu wajiga iftiin bay ku abuurtaa
salaada qofka qalbigiisa iftiin bay gelisaa, nuur bay gelisaa, xasillooni bay gelisaa, deganaan bay gelisaa. nabigu wuxuu ku dhihi jiray bilaal idaa xasabahu amrun, nabiga hadday murugo yar qabato wuxuu dhihi jiray bilaalow salaada noo aqim. allahu akbar. nabi muxamed sal ly slam ayaa dhihi jiray bilaalow salaada noo aqim. markaasuu ilaahay hor istaagi jiray, markaasuu ilaahay ammaanayaa. inaa qofka tukanaya ilaahay buu la hadlayaa oo ilaahay buu ammaanayaa. idaa qaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, addoonku markuu dhaho kelimadaa, markuu dhaho alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa la hadla. ka war hadduu alla kula hadlayo, ka war allihii ku abuuray hadduuba adiga miskiinka ah ee faqiirka ah hadduu kula hadlayo, ka war. allahu akbar. dad badan baa laga xarimay ladata sujuud, sujuudda iyo raaxadeeda, rukuucda iyo macaankeeda. carabkaagu markuu ku taladudayo oo ku raaxaysanayo, aad rabbi hor taagan tahay, rabbina kuu jawaabayo, alla uu leeyahay xamidanii cabdi, addoonkaygu waa igu mahdiyey, nicmadan siiyey buu ku mahdiyey, caafimaadkan siiyey buu iigu mahdinayaa, awlaaddan siiyuu iigu mahad celinayaa, abuurkan abuuray buu iigu mahad celinayaa, insaankan ka dhigay buu iiga mahad celinayaa, islaamnimadii iimaankuu iiga mahad celinayaa, caafimaadkii buu iiga mahad celinayaa, xubnahan siiyey buu igaga mahad celinayaa, cimrigan siiyey buu igaga mahad celinayaa, waafajinta aan iimaanka waafajiyey buu iiga mahad celinayaa. xamidanii cabdi, oo masankeenna ogsajiinka aan ka qaadanno iyo hawada ka soo baxda keligeed miyaan ilaahay mahaddiisa u celin karnaa? haddaan damacno inaan ka mahad celinno, labada indhood ma ka mahad celin karnaa? carabkan hadda aan ku hadlayo eed igu maqlaysaan, eed igu fahmaysaan, xataa laf ma leh, xataa laf ma leh. cadkaa yarka ah nicmada ilaahay uu carabkaa keli a geliyey ee wax lagu dhadhaminayo, macaankii, dhanaankii, khadhaarhkii, hadalkii, qur'aankii, ammaantii, carabkaa keli ah iyo siduu carabka u asturay ee ilka oogu rakibay, ilkihii bishimo uu oga sarraysiiyey, meesha adduunka ugu sharafa jirka ugu fiicnaydna lagugu dhajiyey. war nicmadeen soo qaadannaa markaad rabbi ku kibrayso oo aad salaada ka tegayso. nicmadan yaa ku siiyey? far hadday ku xanuunto ma seexan kartaa? caaw cabaadkaagaa baxaya. war dhakhtaray baad leedahay, dhakhtarka yaa daawadaa siiyey oo cilmigan baray? allah subxaana wa tacaala. aan ilaahay ka xishoonno, aan ilaah ka xishoonno. markaad arsaaqadiisa cunayso oodan wejiga dhulka u dhigayn, ma asaga ayaad wax u taraysaa? yaa ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah kulli fuqaratiin wallahu huwa alghaniyu alxamiid in yasha yudhibkum ayuha annaas waya'ti biaakhariin. adiga meesha waa lagaa saari. famaa bakat calayhim alsamaa'u waalard, dad buusan dhulku u ooyin oyna geedihi u ooyin. laakiin nabigu intuu uxud dul istaagay ayuu beertu uxud baa gilgilatay. markaasuu yidhi uthbud yaa uxud, dushaada waxaa annebi iyo run sheeg mid run badan iyo 2 shahiid. nacam, salaadu qiimahaas lama soo koobi karo. saa daraaddeed qofka muslimka ah markuu salaada tukanayo ilaahay buu la hadlayaa. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim ahnaa calaya cabdi, addoonkaygu wuu i ammaanay. maaliki yowmi ddiin majadanii cabdii, addoonkaygu wuu i weyneeyey. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, haadaa bayna cabdii baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al. anigiyo addoonkaygay tani naga dhaxaysaa. sii wadbal waa adiga hidaayada iyo hanuunka ilaahay weydiisanaya,
waddada toosan ilaahay weydiisanaya maalin iyo habeen 17 jeer salaada noocaas iska tuka ma aha ilaahay tukada ma dhina aqiimu buu yiri salaada toosiya buu alla yiri khushuuc bay u baahan tahay salaadu walidaalika maxaa loo baahan yahay salaada marka la tukanayo horta marka koobaad inaad naftaada u diyaariso salaada dharka baatiga ah ee basasha badan ee basashu ka soo kamkamayso ee aadan marti ku qaabisheen ma aha inaad ilaahay ku qaabisho soo caday afkaaga soo nadiifi jirkaaga khuduu ziinatakum cinda kulli masjid markastoo tukanaysaan dharka ugu fiican qaata ahwanu nnaadiriina ilayh cidda ku fiirinaysa midka ugu liita ilaaha ka dhigin subxaanahu wa tacaala isu diyaari dami tiifiga teleefoonka codka ka xidh sawirada iska qaad naftaada u soo diyaargarow taasi waxaa weeyaan khushuuc halkaasoo ka imaada الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها إن صلاة الله يصد دياريو لو ديار قروبه قضب كوبات خشوعا نقول كالمين يا صلاة قضب كاللبات الطمأنينة في الصلاة مركان تكنينو إنا نقاق بدن سمين حقشضة إنا والبقى إيا دمينتا التليفون إيا داردة إيا أتكون مشغوشنتا عمامة هذا إيا حجاب كاغا إيا ساعة هذا إيا ساكذا أتقبتين شرح عليه أداوانيسو وحاسونا وحاويا صلاة داوا عيسى نبينا صلى الله عليه وسلم مركو صلاة تكنيو يطمئن وحسيلي جري حتى أي لف والبا ماشي لوغو تلقلي أي متغانا كو استاغتو ماذا دقاق جرين قضب كصدحات او صلاة الروح دا ويليا اي خشوع آنكم مقعوني إنني صلاة الروح دا ذي نولاشيدو نولين تيدو وخشوعة وإن الموذ حصوصته قورت آد صلاة كجرتو او آد اعتقاديسو طلو صلاة داني ما صلاة ما كدن بين دوت فلا إله إلا الله صلاة داني متي أودن بيسيبه ميسه صلاة داني ما صلاة دي أودن بيسيبه ميسه صلاة دنبات تكن دونتا نبي قايل صلى الله عليه وآله وسلم حصوصه أئمة قار كميدة واكوانها صلوا صلاة مودع قف دار مية أو سووتينية صلاة دي تكو بمعنى دانسيك لونه قف ليري صلاة دمركات كبحضو وابنمانيسا او إلهي بالله كل ميسا او الدنيا دنبات كنتغيسا سيد اتوكن لهيدو كلا اتوكو تاس ارنتا ويكو كالمينيسا لكن إنان صلاة دينا توكن أنغو مقام الدنيا دا بتشوغين با آخر با آدم با اون الدنيا دا كفوفنو مر الله مركان صلاة دا قالو اد سو حسوساتو طلو سنة بشن ايو تدام ادا قادن لها الله ميا ها ادا قادن لها ميا هبلايا قادن لها او مر الله مركان صلاة دا قالو انو ديب حسوسانو قاددي ان ميل دقناي الله وركا وحان حسوس الشيغا او قور الركوع دي iyo goor aad sujuuday iyo goor aad faataxa dhamaysay aad garan weydo kadibna aad aado warma saddex baa tukatay mise afar baa tukatay qodobka afraad aayaadkaad aqriyayso carabkaaga aayaadkaad ka aqriyayso inaad macaanidooda dhuuxdo alxamdulillaah qul huwa allahu axad aayaadkaad aqriyayso inaad macnahooda dhuuxdo waxaa weeyaan waa qodob muhiim jiddan وإلا هدان مقنتاي وحبضا صلاة دادي من نقونيسو سيدا اوكالي قضبضا مهم كا إن الصوت قروح سنكو أخرد قرآنك أيضا وقضب آدي آد مهموا عورضادو إني سفي عنكو أسترمتهي
oo cawradaadu ayna dhuunta iyo lugaha iyo aan lagaa arkaynin khaasatan dumarka iyo dhalinyarada waxyaabaha kugu caawinaya waxaa ka mid a gacmaha xubin walba oo meesha loogu talagalay aad dhigto waxaa kaloo khushuuca nagu caawin kara meesha aan ku sujuudayna inaanu eegno waxyaabaha nagu caawinaya ka mid meesha aanu ku sujuudayno inaanu eegno oo aadan xagga iyo aadan waxba aadan fiirinin salaada khushuuceeda waxa aad iyo aad u yaab badan weeye waana ruuxda dhabta ah ee markaa loogu talagalay waxaan ku soo gabagabeynayaa akhawaati fillah salaadaasi qiimaha badan ee aanu sheegnay qofka ka taga muxuu la kulmayaa taariku salaad ayaa la yiraahdaa hal qodob ku qanacaawa hal qodob oo kaliya ku qanaac qofka salaada ka tagay horta qofka aan weligii sujuudin weligii waa muttafaq culumada muslimiinta inuu gaal yahay ha ku rafaadin magac Soomaaliyan wataa ha ku daalin ha isku wareerina magac Soomaaliya wataa alladhi lam yasjud wa lam yarka' qattu biittifaq almuslimiin horta waa gaal waxa laga doodayo waxa weeye waa qofka marra tukada marra ka taga kaawaye midka laga doodayo midka inkirana asaga la isku haysto qofka dhaha salaadi layguma leh war waa lagu leh ilaahay baa saas yiri ninka caalimka aha oo xujada u sheego kaana wuxuu inkiray macluum bidiini bidarura asna waa gaal maxaa soo haray qofka dhahaya salaadu waajib ay ugu tahay waan ogahay laakiin aan tukanaynin ee marra ka tagaya marra aan ka tagaynin kaawaye miday doodu ka taagan tahay aslan horta ogaada kaan laftiisa way midka ay doodu ay ka taagan tahay sida daraadeed baa culimadu qowl waxay dhahay innahu kaafirun kufrun akbar mukhrij min al-milla qofka duu salaadiba ka tago qaar waxay dhahay man taraka salata takasulan qofka wahsi oga tagay laysa bikaafir laakin waa faasiq caasi kabiira min al-kabaa'ir wa weyn bu ku dhacay laakin hal iskuma khilaafsan ogaada qofka asaga duu tukan waa in la dili doono yastahiqu alayha al-qatl in la dilayo iskuma khilaafsan waxa loo dilayo bay isku khilaafeeno magaalnima loo dilayaa mise xad baa loo dilayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam xule inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarka as-salat qofka muslimnimadiisa iyo gaalnimadiisa waxa u dhaxay inuu salaad ka tago muribiina ilayhi qayd quraan wal ilaahi unqada wattaquhu wa aqimu as-salat wal salata tawsiya wala takunu min al-mushrikin wal salata tukada oo gaalaha noqonina ay hadith kale nabiga sallallahu alayhi wasallam al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat anaga iyo gaalada waxaana lagu kala soocaa salaada faman tarakaha faqad kafar qofka ka taga waa gaaloobay saas ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bal hadithkan ajaa'ib kala dhageysta 5 salawat katabahunna Allahu ala al-ibad 5 salaadood ilaahi baa adoomada ku waajibiyay man jaa bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an qofka la imaada 5 salaadood oo aan dayicin lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna asagoon 5 salaadood xaqooda aan dayicin kaana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannah ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu janno geliyo ayuu alla ballan qaaday inuu kaasi janno gelinayo waman lam ya'ti bihinna qofka aan la imaanin falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun ilaahay agtiisa waxba ooma yaalo in shaa'a 'adhabahu hadduu doono waa cadaabaya wa in shaa'a adkhalahu an-nar adkhalahu al-janna banu jeeda hadduu doono alla jannu gelinaya bimacnaa waa maxay waxaad ku jirtaa bayna mashii'ati Allahi subhanahu wa ta'ala ayad markaa ku jirtaa aayaadka aan soo sheegnay ma salakakum fi saqar saqara maxaa idin geliyay qaaluu lam nakun min al-musallin ma aanan tukan jirin ayay dhaheen sidaa daraadeed waxaan leenahay salli qabla an yusalla calayk wartuko inta aan lagugu tukan salaad aan lagugu tukan aan rukuuc iyo sujuud midna lahayn maxay ku taraysaa
haddaadan adduunyada ku tukan jirin inaad tukato salaad aan in lagugu tukado salaad aan rukuuc iyo sujuud midna lahayn tuko inta lagugu tukan tuko inta lagugu tukanin tuko inta lagugu tukanin hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in وجزاكم الله خيرا وأحبكم في الله تبارك وتعالى أن كد ذال الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته